بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الير بل هالمر أنا إذن شذو دبعا مركز فلنقين دونا إن شاء الله تعالى. افر يقول علي واقف ساعة لا قبل بس بالله ورجعت سبحان الله. ودبعا هذا الكفتن ولا رأي يقول دهين hadalkan waa hadal culus aad u weyn run ahaantiina waxyaalo badan ay waxan baarsan yahay walaashan ma la furay nacam way furantahay sida culimada badankooda ay qabaan waxaan ku dabaqaynaa markaasi xadiidkii rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam oo yiri thalathun jidduhunna jid wa hazluhunna jid saddex dhabtooda iyo run ka dhigidooda waa sida macnaha dhab hadii aad u dhahdo waa ay yihiin dhab macnaha sidaas oo kale hazli ama kaftan ay ciyaar hadii loo sameeyo loo dhahana dhab ay noqdaan marka dhabtoodan waa dhab kaftankoodana waa dhab marna ma galaan ciyaar marka walaalaha Soomaaliyeed in badan waxay marayaan in waxyaalaha qaarkiisa kaftanka uu la galo ilaa iyo furiin oo dhaco waxaan isleeyahay inaynan garanayn waa laga yaabaa walaalahan inay og yihiin dabcan ay ka noqotaan waa laga yaabaa waxaan u badinayaa inaynan ayaan u badinayaa maxaa yeelay haday og yihiin furiin inuu arintan ay keenayso oo ay dhab tahay ay dhacayso ismalihi ama macquul ma ahan inay dabcan ku dhawaaqi lahaayeen ay sameyn lahaayeen sidaa darteeda inaan ogeyn u badi xadiidkan marka sida culimada ay u badan yihiin inuu saxiix yahay weeyaan maxaa yeelay khilaaf yara ku jira oo qola dhahaysa waa daciif qolana waxay leeyihiin dabcan daciif maan waa saxiix yani Sheikh Al-Albani ayaa sidoo kale saxiixinaya xadiidka marka waana sida loo badan yahay arinta noocan oo kala iyo kuwa ka daran social media way ka dhacaan marka waxaan aga faa'iideysanaynaa arintan walaashan iwaalkan sameeyay ayagaasi keligooda ma aynan sameyn dad badanaa sameeyay marka aan leeyahana waxa laga yaabaa inaad og tahay su'aalaha soo tira badan in habeen iimaan wadaad la weydiiyo waxaan dhihi karaa taqriiban bishii ugu yaraan 2 mar 3 mar su'aalahan way yimaadaan culimo mu'tamar fadhisa su'aalaha noocan oo kala ku soo laabtaan inaad aragteen filaya yani waxay gabadha leedahay ninkayga si kaftan ama ciyaar wuxuu ii dhahay waan ku furay sheekhu ma furanahay ama nin ayaa wuxuu leeyahay sheekhu xaaskayga anoo la ciyaarayo waxaan ku iri waan ku furay iyo wixii la midka sidaa darteeda niyaday u baahan tahay culimada dhahaysa arintan ninka inuu gabadha furo inuu niyeystay u baahan tahay wala awood badan yahay marka la fiiriyo talaaqa sariixa yani talaaqa ama furitaanka waadixa ee aan wax shaki ku jirin waxa kamid waa maxay alfaad ama lafdiyada la fahmi karo tusaale ahaan waan ku furay waa hadal cad waa iga furantahay waa hadal cad haddaan ku furaya oo waa iga furantahay haddaad ku furay macnaha sidaas oo kale hadallada furiinka aan haba yaraatee shaki la gelin karin ayuu kamid yahay dabcan hadalkan oo ifur maxaa ku xigay waan ku furay sidaa darteed aan leeyahay walaalaha arimahan ka dhiganaya ciyaar iyo kaftan waxaad ogaanaysaa xadiidkan inuu idinku dhaboobayo saddex dhabtoodana waa dhab kaftankoodana waa dhab ciddii hore u ogeyd waan ku adkaynayaa waxaan ku leeyahay nacam arintaa waa halis waa arin jirta halisteedana adiga aad qaadayso ogow ciddii sidaas samaysa dalqadaa ka dhacday ciddii ku dhawaaqda waan ku furo dhahda dalqadaa kaa tagtay waxaan sidoo kale isdhahayaa marka uu sidaa dhaho markiiba wuxuu leeyahay kugu soo laabtay kolley hadalkiisa inuunan ahayn u badi dabcan oo la saaray ayagana ay matalayaan siday ahaataba matalaada aad matalayso waa dhab matalaada aad matalayso waxaa la mid oo xadiidka ku sugan saddexda marka rasuulka calayhi salaatu wasallam uu ka hadlay at-talaaqu wan-nikaax wal-'itq aw ar-raj'a talaaqa furiinka iyo nikaaxa gabadheedan ku siiyay waan aqbalay ama gabadheedan kugu daro ma aqbashay waan aqbalay way ka tagtay gabadha sidaas lagu guursaday hadii uu dhaho waan aqbalay wabillahi tawfiiq meherkaas wuu xirmay waa meher aqidmay sidaa darteeda arimahan Soomaalida waxaan doonayaa videogan iyo kuwa la midka ee culimada ay kaga hadlayso in badan la isgaarsiiyo maxaa yeelay jahli badan jira maxaa yeelay ilaa ay hadeerta marka la leeyahay ay gabdho badan iyo wiilal badan ay sidaa ay sameynayaan waxa la ii sheegaa walaalahan inay social media caan ka yihiin aad loo yaqaano khaasatan TikTok ayaa la igu yiri dabcan TikTok ay aad caan uga yihiin marka ma isleedahay dadka sida xaaladooda ay tahay oo social media ku jira marka ay ficilada noocan oo kala sameeyaan inay fasaad badan ka dhalan karto ma isleedahay shaki kuma jiro fasahaada ka dhalanaysa waxay tahay in dad badan ay ku daydaan maxaa yeelay waxaan ognahay social media hadba qofka intuu dadka taabicsan ama taageera ama ku xiran ay badan yihiin inay saameyntiisa badan tahay marka waxaa arkaysaa walaalahan dad ay role model u yihiin dada ku dayda dada taageerayaal u maxaa yeelay qofka hadii uu taabiciin badan ama dad badan oo dhageysto oo ku xiran uu leeyahay yani dad ayaa jecel oo ku xiran sidaa darteeda fidnay noqon karta arimaha noocan oo kala dad ayaa sameyn kara arimaha noocan oo kala bal waxaan aragnay hadda ka hor tan mid shabahda oo baranka yacnihi laga dhigaayo ciyaar iyo kaftan taasoo ay ahayd sidaas oo kale taqriiban waan ku furay oo kale xilligaasi waxaan filayaa dhowr bilood 9 bilood ama ku dhawaad sanad iska taqriiban ay ahayd waan ka hadalnay walaalihii waxay noqdeen inay dabcan markii dambe ay ogaadeen inay arinta ay
sida ay u dhacdo ay xadiidba uu ku yimid oo gadaal ay ka shallaayeen oo uu ka laabtay oo yani wixii la midka laakiin waxaad arkaysaa in arrimaha noocan oo kale aad loo fududaysto dad badan ay ghaafiliin ka yihiin juhalo ka yihiin ogeenba arrintan inay dhab tahay sidaa darteed dadka arrintan fidnada ay ku noqon karto ama ay saameyn karto arrintan dabcan ay gaari karto suntan maxaa waa sun waxaan kuu sheegay kugu iri hadba dadka intay taageero badan leeyihiin ayaa saameyntooda ay badan tahay sidaa darteeda dadka taageersan waxa ay saameyn ku noqonaysaa inay arrimaha noocan oo kale ayagana sameeyaan beritaan arkaynaa dad codkaasi intay ayagana qaataan TikTok ama Facebook ama YouTube ayagana sidaa samaynaya iyo social media kale dabcan ay jira marka walaalaha qaaliga waxaad ogaanaysaan ciyaar ma galaan waxaan ciyaar galin waxyaalaha furiinka uu kamid yahay siismada gabadha waan kugu nikaaxay ama waan kugu meheriyay ma aqbashay iyo ama soo laabashada ee rajcada iyo xadiidka sidoo kale wuxuu sheegayaa cidqiga ama qofka inuu dhaho dabcan hadda ma jirto laakiin wuxuu ka hadlayay xilligaasi iyo hadiiba dabcan ay imaan doonto aakhir zamanka dabcan qof adoon ku ama qof adoon ayaa waxa qofkan uu leeyahay xur ayaan ka dhigay sidaas darteeda ayaa rasuulullaahi calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xur hadii laga dhigo oo la dhaho xuraad tahay wabillahi tawfiiq taasoo ku tahay qofkii xur ayuu sidaa ku noqonaya marka hadalka u fiirso waa sariix hadal xataa shubha yar la gelin kara ma aha aan ku celiyo in yar dhagayso ifur igu celi waa ku furay saacan laga bilaabo bas beebiraal rajac هذا العرس ويان الله سبحانه وتعالى دنبغير لما هدافو walaalshaasi walaalkaasi waxaan leeyahay aan jecelahay aan ugu baaqaya arintaasi inay gef ahaan u arkaan ka dhacay dadka kugu xiran mas'uuliyadda ka saaran ay gutaan oo in arinta ay gef ahayd dabcan videogaasina haday suura galayso kulay meel walba ku jira nacam meeshan hadda aan ka shiday waa Facebook afwan Facebook aan waa YouTube aan ka shiday hadirtan Facebook ku jira sidaas oo kale yani social media dhino maraya oo la isgaarsiiyay sidaa darteed hadii ay xataa ka saaraan waana marka aan dhaho nacam hadalka iga ho waa marka aan dhaho war walaalayaalo waxaad soo duubaysaan waxa tafaftiran waxaad ka fiirsateen waxaad isla meel dhigteen ha noqdaan gaar ahaan lamaanaha labada qof ee isqaba haddii ninka uu qaldamana gabadha xaaska waa inay dhahdaa war yaa meeshan wax baa si naga haddii ay gabadha ay qaldantana waa inuu ninka dhahaa war meeshan wax baa si ka yani dad iscishan kara dad isla talin kara dad wax isu dabcan sheegi kara tafaftiri kara waxooda inay dadka noqdaan social media waxaad soo geliso way ku daayeen wallahi waa sida hadalka ama videoga social media aad soo geliso haddaad dhimatana sidaas uu jiraya u tagaya maxaa kaada hadii laga saaro xataa familkaada ka saaran imisan aragnay dad dhintay ayagoo xumaan sameynaya dabcan familiadooda ay tirtireen videodooda laakiin aad arkaysa la wareejinayo markaas familiyadii leeyihiin walaalayaalow ilaahay idinku dhaaran sidaa sameeya oo ka tirtira oo ka bixiya ee wixii la midka taasi waa dadkii oo dhintay ayagii oo noolna qofkii xumaan oo sameynaya tusaale ahaan oo toobad keenaya wixii uu ka laabanaya oo ka tagaya oo ka baxaya kumanaan umada hore u qaadatay dad u qaatay ku xumeen dad iska fani iyo ciyaar u qaatay qofkii markuu wixii ka baxo waa kuwaas waxaad u malaynaysaa in markaa la faafiyo markaas oo viral noqonayo adduunka gaaraya marka walaalaha xataa haday videoga ka saaraan oo meeshooda ay ka saaraan TikTokooda ay ka saaraan sidaas u wareegaya meel walba jira waaba kaasa hadii codkooda yahay ma u malaynaa inuu codkooda yahay waa laga yaabaa inuu codkooda yahay marka ciddii codkan samaysay hadduu kooda yahay na sidaas u tagay hadduusan kooda ahayna kasaaridiis waxba ma taray sidaa darteeda ayaa waxaa wanaagsan video ama maqaal yar ama muuqaal yaran ula jeedaaye inay soo duubaanay dabcan dadkaa tirada badan ee ku xiran ay ugu sheegayaan qalad inuu dhacay sidaa oo kale waana isbariyeelid meeshan dhambaal ayaan dirayaa marka dhambaalka aan diraya waxay tahay dadka la yaqaanay caanka social media kala duwanna ku jira ayaan dhambaalkan u dirayaa waxaan leeyahay waxaana jecelahay inaad gaarsiisaan dadka tirada badan ee dabcan hadee dadka la yaqaanay caanka markaan le waa ay tiro badan yihiin waa boqolaal hadalkan ku dhahay waxay tahay ma og tahay dadka tirada badan ee ku yaqaana ee kugu xiran ee hadduu YouTube yahay hadduu Facebook yahay TikTok yahay Snapchat Instagram iyo meelaha kale markaasi jiri kara Twitter iyo wixii la midka ku dar haddii marka dad badan ay kugu xiran yihiin waxaad ogaanaysaa mas'uuliyad ayaa ilaahay agtiisa kaa saaran dadka inaad xumaan aadan ku faafin dadkaasi mas'uuliyada ilaahay agtiisa ka saaran sidaa darteeda waa inaad dareemi kartaa in qof dad badan ay ku xirmeen haddaad noqoto inaad dareemi kartaad og tahay hadalkii shalay iyo ciyaartii iyo xumaantaad shalay samayn jirtay inay maanta ka saameyn badan tahay sidaa darteeda wanaag walbo arrintaad samaysa ka yimaadana inaad ajarkeeda leedahay xumaan walbaad samaysana inaad xumaantaasi dembigeeda leedahay ogow marka aayadan qur'aanka bal aan kuu fasiro si aad u aragto dabcanna waa taqaanaan intiina badan waxay ka hadlaysaa aayadan dadka lumiya keliya feeri dembigooda قادي دونان يعني وحو الله سبحانه وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة
ماشي كري الله أقوم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم وهي حنباري دونان أي قادي دونان دنبيدي عريسيدي لباتوينكي أيوة كاملة يوم القيامة أيوة كاملة بوحة ما انت لا ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم يددك اللوميين sidaasoo kale xumaantii ay sameeyeen ayaan way qaadi doonaan marka taalaad qaadaysaa 10kii qof ee 100kii qof ee 1000kii qof ee milyankii kugu xirnaa ee daawaday wuxuudaad xambaari doontaa ma ahan kaliya taada weeyaan macnaha ma ahan walaalahan inaan leeyahay hadalkan dhammaan cid walba caan ah la daawado lagu xiran yahay ogow mas'uuliyada dadka ka saaran hadalkaada haddii uu hal qof gaaro halka qofna xumaan adiga aad samaysay uu sameeyo dambiyaad ku leedahay xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam kugu khatimo oo ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofkii sunno wanaagsan arin wanaagsan jideeya wuxuu leeyahay ajarka sunnadaasi uu jideeyay iyo qof walboo sameeyay ajarkeedu leeyahay man sanna sunnatan xasana sidaasoo kale dhinac kale u imow qofkii wax sayi'a ah wax xumaan ah sunna xun jideeya ama sameeya wuxuu leeyahay rasuulullaahi calayhi salaatu wasalaam dembiga sunnada xune uu qofkaa sameeyey iyo cid walboo dembigaasi samaysa ama jidkaasi raacdee qaada ayuu dembigeeda leeyahay rasuulka dhahay calayhi salaatu wasalaam sidaa darteeda walaalaha qaaliga ahee dadka badan ay ku xiran yihiin meel walba social media aad ka doonto jooge waxaad ogaanaysaa mas'uuliyadda kaa saaran dadka kugu xiran inay tahay mas'uuliyad akhlaaqi ah mas'uuliyad diini ah waa sidaad ogow akhlaaqda dadka kugu xiran waa inaad doortaa ilaalisaa diinta dadka kugu xiran waa inaad doortaa ilaalisaa ma ahan oo kaliya macnaha waxaan doonaan samay marka qaarkiisa haddii aad waxyaala dadka aad kaga khosliso aad samaynayso oo kale waxyaala badan xeeri samay macna ma laha laakiin xeeri waxyaala badan ma akhlaaqda dadkay wax u dhimaysaa ma diinta wax u dhimaysaa ma dad ayaad ku dulminaysaa iyo wixii la midka ah yani wax xeeri wax isku day inaad cid walba wax samaynaysa weeyaan oo aniga aan ka mid ah cid walba video duubaysa ha ogaato ha tixgeliso cuquusha dadka daawanaya ku xiran haddii kale maanta waxa uun ka qaadaysa waa maxay in dad badan waxa aad samaynayso xumaan kaaga daydaan berritana balaayo inay ku sugayso la hawla wala quwwata illa billah marka bangigaada ha gashan hana ku keedsan balaayo iyo xumaan iyo dunuub Allah idin barakeeyo walaalahaasna hadalkaasaan ku dhahay oo ah dadka hadalka ilan waa soo fakaday dadka idin ku xiran tirada badan ee markaasi boqolaalka kun ah ee daawanaysa at least hal video aad isku baryeelaysaan ama qalad dhacayno ahaa u sameey Allah idin barakeeyo cid walbo sameeynaysan si ay u ogaato arintii nooca ahayd inaan ayagana sameyn lamaanayaasha kuwa hadda isqaba kuwa isguursan doonana inay arkaan arintaa oo kale inaynan ahayn arin fudud oo sida qofka uu kaga furmaayo oo ay gabadha ay tahay sida lagu furay rajacatuda oo dhahay dabcan oo ku laabanaya hadaynan dabcan ahayn midii saddexaadii ugu dambeysay hadaynan ahayn xalaalay u tawo ku laabanaya marka Allah idin barakeeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala hana dhowro dhamaanteena social media fidnaan wada joogna intiisa badan fidna ayaamahan nacam faa'iidooyin badan oo leeyahay laakiin fitantiisa waxay tahay mid sida u soconaysa والله فيديوغاسي غريغو igu soo galay sida adiga guriga uu kugu soo galayo kan ama ka ayo sidaas oo guriga igu soo galay cid walba uu galaya marka waxa duubaysaan mas'uuliyad ayaa idin ka saaran waxa dadka u gudbinaysaa mas'uuliyad ayaa idin ka saaran dhamaanteen uu naga saaran yahay Allah naga baxno tabaaraka wa ta'ala intaas ayaan jeclaysan inaan idin dhaho dhamaantiina dabcan guud ahaan wajazaakumullahu ta'ala khayran wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh صديق ليس ينفع يوم بؤس قريب من عدو في القياس وما يبقى الصديق بكل عسر ولا الإخوان إلا للتآسي عمرت الدهر